magaalada Hargeysa waxa waayadan dambe goobaha caweyska aad ugu soo badanayay xaafadaha qaaciga iyo waliba heesaha qaraamiga ah dhalinyaradu ay isku yimaadaan iyagoo halkaasi ku baashaala qadar xaaji cabdullaahi ayaa ka waramaya waxa ay ku raaxaysanayaan dananka gitaarka iyo heesaha qaraamka magaalada Hargeysa oo fanka caan ku ah ayaa waayadan dambe waxa dib looga soo nooleeyay tumashadii qaaciga ay Soomaalidu caanka ku ahayd runtii wallahi horta markii hore waxaan u baranaynay kabankeena nafteeda ku raali gelino oo anagu isku madadaalino laakiin muddada waxaan ogaanay in bulshadii ay nala jeclaadeen kabankii oo xiiseynayaan iyagana ay xiiso ku tahay waxaana sii hirgeliyay social media fara badan ee dhalinyartu ay gelayaan waqtiyada dalabku ay maadana gelin hore gelin dambe marmar baad adigoo dhalinyar iskala caweynaya ay dhalinyar kale ku soo dalbanaysaa ay doonayaan in adigana la caweyso caweysida noocan ah ayaa badanaa waxa weheliya isxujeyn iyo kaftan u kulbo qof heesayo walaad ban faraxsan alxamdulillah weekend-ka oo kale aad baa lagu raaxaysanaa markii hore qaaciga waxaan ku maqli jirnay sheeka ku maqli jirnay laakiin anaga oo tumaana heesaan ku dhibaynin stresskaad kaga raysanayso ma sha Allah jawigan horta aad arkaysaan caawa asxaabtii oo dhan baa wada joogta caawa waa la wada heesaya kii codka xumaa kii codka wanaagsanaa waxa jira qaar fanaaniinta caadiga aad uga sii cod wanaagsan adigoo cadhaysan xataa dad ifan aad timaado meesha adigoo qosleed ka imanaysa waayo saad u qosleysid waxaan ku huriyay dee waa wallaahi waa nafisaad caadi weeyaan inkastoo ay kooban yihiin goobaha isboortiga iyo maararowga waxa ay da'yar badani madadaalo ka dhigtaan qaaciga halka ay qaar kalena u tahay shaqaabuur maadaama uu dalabkiisu badan yahay qadar xaaji cabdulaahi BBC Hargeysa